kulan loogu barodiiqayay dadkii dhawaan ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay magaalada Nairobi. kulankaas ay ka qayb galeen siyaasiyiin, aqoon-yahano, culamaa u diin, wariyaal iyo sidoo kale qaybaha kala duwan ee bulshada. waxaana looga tacsiyeeyay dhammaan ummadda Soomaaliyeed dadkii ku geeriyooday qaraxaasi. si gaarana waxaa tacsi loogu diray eheladii ay ka baxeen. haddaba qaar ka mid ah dadkii halkaasi ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa. waxaanu halkan uga tacsiyeynaa oo aynu maanta idiilkeen isugu nimid ganacsadayaal, madax, siyaasiyiin, aqoon-yahano, arday, asxaab, ehel, idiilkeen inagoo isku duuban waxaynu halkan uga tacsiyeynaa waa guud ahaan dadkii walaalaha ahaa ee halka iyo Kismaayo lagu xasuuqo lagu laayay. gaar ahaanna gabadha walaasheena ah qalbiyadeena runtii ku weyn tusaale fiican u ahayd runtii dadkeena gaar ahaan dumarka hodan naaleeye. ilaahay waxaanu uga baryeynaa idaylkood inuu qabrigoodii u waasiciyo. ilaahay rawda min riyaadil janna inuu uga yeelo beer janna xabaasha dambiyadooda inuu dhaafo qabriga ilaahay inuu u waasiciyo jannatul firdawsna inuu ka yeelo halka ay ku hooyanayaan. waxaan kaloo u tacsiyeynayaa runtii oo aan leeyahay dadkii ay ka tageen aabaheed, eheladeedii yani waalidkeed iyo eheladii aad ugu dhow walaalaheed idayl iyo waliba saygeeda yaanan ilaawin hadal hilmaan kuma jire Fariid Jaamac oo runtii qalbigayga isna ku weyn eheladiisii oo dhan in ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo. walaalayaal taariikhdooda ku laaban maayo laakiin waxaan aad iyo aad u bartay maalin runtii farxad ahayd, maalin ay ilaahay uu qadaray in ay wada jiraan oo ay wada kulmaan oo ay midoobaan laba family oo aanan hore u kala fogaa. waxaad garanaysaan guurku inuu yahay waxyaabaha ilaahay ummaddu uu isugu keeno, union ama midnimo. marka ilaahay dadku uu midaynayo guurka ugu horeeya waxyaabaha midnimada keena waxa isku xirmaya laba family, familyga wiilka iyo familyga gabadha ayaa isku xirmaya. ilaahayna waxaan ka baryeynaa gacan ka xaq daran baa hodan iyo intii ku dhimatay Kismaayo gacan ka xaq daran baa dishay. ilaahay baan uga baryeynaa inuu jannada geliyo. ilaahay waxaan uga baryeynaa inuu beera uga abuuro jannada insha Allah bilbillahi kariim. marka walaashaan hodan waxyaalo badan oo taariikh leh baa jiraan oo inkoo dhan ka sheekeynaysan aniga dib ugu marbi laakiin waxaan leeyahay hadaan nahay haweenka Soomaaliyeed meel kastaan joognaba gacan weyn baa naga gooday waayo waxay ahayd gabadha kaliya soo baxday inay narrativeska Soomaalida wanaagsan inay soo bixiso oo ma aragta adduunka sawirkan laga haysto moogi sawir kale ay soo bixisay ahayd. marka waxaan leeyahay aad iyo aad baad aan uga xunnahay arrintan dhacday laakiin waxaan leeyahay walaashay Faadmo waxay tiraaday waari way sidee war ka haro. walaashaan hodan waxa laga hayaa inay tiraada iyadoo nool markaad aan dhinto igu xasuusta wax alla wixii fiican. marka waxaan ka bariyay wax halkan joogan tafadal bin Xasan wax fiican aan sameeyno oo ayada ku xasuusano taariikhdii qiimaha badneed ee hodan naaleeye inaan xusuusano dadkii ku geeriyooday gacanta dulmiga ay ku geeriyooday magaalada Kismaayo bishii July 12 oo hodan ay kamid ahayd oo ninkeeda Fariid Jaamac uu kamid ahaa oo Maxamed Sahal oo wariye ahaa uu kamid ahaa Maxamed Ismaaciil Shuuriye oo siyaasi ahaa uu kamid ahaa iyo dad fara badan oo qiimo badan Xasan Jeelle oo xaafadayda deganaa uu kamid ahaa inaan u tacsiyadeyno inaan xusuusano inaan ilaahay u barinaan isugu nimid halkan. hodanna waxay ahayd xidig naga soo dhaxbaxday oo ku isticmaashay social media-ga iyo television-ka siday u iftiimin lahayd mugdiga ka jira Soomaaliya. hawsha ay qabatay iyo hawsha ay bilowday ayaan jecelnahay inaan hore u sii wadnaa
إن الله وإنا إليه راجعون الله نحرسته walaasheen hodan walaalkeen deeq ciise iyo walaalkeen mahad gurgurtay iyo intii kale ay ku dhimatay qaraxii Kismaayo ka dhacay waxaan saddexdooda magacyadooda u sheegay waxa waaye hodan dadkii ugu horeeyay oo dhan baa ka hadlay taariikhda iyo qiimaha ay ugu fadhiday bulshada Soomaaliyeed meel kasta oo caalamka joogaan deeq ciise waxaan magaciisa u sheegay inkastoo ay inta ka shaqeynayay wax badan oo anoo yar oo dhalinyaro aan garanayo Kismaayo xambal markaa xitaa primary dhiganay high school labadaba inuu UNICEF madax ka ahaan jiray haddana aniga noloshaydu qayb badan ku leeyahay waxbarashadeydii guurkayga koowaad aan guursado ilaa iyo qayb badan oo waalidkay marka laga reebo noloshayda qayb badan ka mid uu qayb ka qaatay marka Allah u naxariisto waa waalidkay camal mahad gurgurte asagoo nin ganacsada uu ahaa waxa sheegay walaalkeen oo si fiican u sharaxay waxaan magaciisa u sheegay wuxuu ahaa shakhsiga ku dhaliyay hodan ee timaada Soomaaliya oo ay shaqadan qabato hadda markii ay dhimanayeen waa wada joogeen ayadaana ku dhalisay inuu Kismaayo markaa yimaado inkastoo qorsho uu ganacsiga u joogay laakiin safarkiisaas qayb ayay ka ahayd marka ilaahay ha u naxariisto dhammaan dadkii meeshaas ku dhintay oo dhan hodan ayadoo nool ayadaan u laabanaya bay dardaarantay waxayna tiri anigu waxaan ahay shakhsi nool oo adduunka jooga waxaan rabaa markaan dhinto inaan ka tago wixii lagu xasuusan lahaa marka inaan xasuusano oo dadkaas badan oo dhintay maalinkaas qarax ku dhintay kuwa kale haliyaa badan oo qaraxyo ka horeeyay nooga dhintay iyo siyaalo kala gedisan loo dilayba waxaan magaceeda ugu weynaynay waxa waaye ayada dardaarantay wada fiican oo lagu xasuustana way samaysay Allah u naxariisto